dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in shaqada ay ka joojisay oo ay xirtay dhowr xubnood oo ka tirsan ciidamada kumaandooska danab oo Mareykanku tababaray. Shaqo joojinta iyo xariga ayaa waxa ay ka dambeysay markii la xaday raashin oo ugu deeqay Mareykanka, iyadoo intaasi ku dartay in ay la wareegayso mas'uuliyad bixinta ciidanka. Sarkaal Mareykan ah ayaa ku sheegay hadal uu siiyay wakaaladda wararka ee Reuters in Washington ay si dhab ah u qaadato dhammaan eedeymaha musuqmaasuqa. Isbitaalka Turkiga ee u gaarka ah ragga waxaa ka howlgala dhaqaatiir ajaanib ah kuwaas oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca taranka ragga iyo dhalmo la'aanta ragga. Dhakhtarka ayaa ka daaweyn doona cudurrada ku dhaca haniyaha iyo xanuun walba oo aad ka dareentid qanjirka borostatada ragga, biyo-baxa degdega ah, hamiirida ragga iyo shahwada ragga oo daciifta. Soo booqo isbitaalka ku yaala xaafadda Taleex ama nagala soo xiriir nambarka shaashada ku qoran. Waxaan rajaynaynaa inaan kala shaqeyno danab abuurista ilaalinta lagama maarmaanka ah iyo talaabooyinka isla xisaabtanka si looga hortago shilalka mustaqbalka ee saameyn kara kaalmada mustaqbalka, ayuu yiri sarkaalkan, isagoo aan si toos ah uga hadlin in wax taageero ah oo Mareykanka ah mar la joojiyay. Mareykanka ayaa sanadkii 2017 ogolaaday inuu gacan ka geysto tababaridda iyo qalaabeynta 3,000 oo askari oo ka tirsan danab si ay ugu falceliyaan weerarada ka dhanka ah shabaab. danab ayaa tan iyo sanadkii 2022 si weyn ugu lug lahayd guluf military oo ay ku qaadeen ciidamada militariga Soomaaliya in shabaab lagala wareego deegaano ka tirsan bartamaha Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, ololaha ayaa noqday mid saqiiray iyadoo ciidamada dawladda oo isgarabsanaya ay la daalaa-dhacayaan sida ay dhulka miyiga gacanta ugu dhigi lahaayeen, waxaana shabaab ay sii wadaan weeraro waaweyn oo ay ka geysanayaan caasimadda Muqdisho. Washington ayaa hakisay qaar ka mid ah kaalmadii dhanka difaaca ay siin jirtay dowladda Soomaaliya 2017 kadib markii militariga ay ku xisaabtami waayeen cunnada iyo shidaalka. Sidoo kale, dowladda Mareykanka ayaa inta badan duqeymo ka fulisay iyadoo adeegsanaysa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano oo lagu bartilmaameysanayo shabaab. Khayr Cabdi Axmed, SBTV, Muqdisho.